wacyiga ay ku jidho iyo labada xaaluf oo hadda soo food saaray xeebaha Puntland ama ee Soomaalida kale la wadaagto waxaan rabaa inaan warkayga ku soo hormaro aragoostada shayga la yiraahdo aragoostadu waa noole ku nool badda wuxuuna ka kooban yahay sida aan ku aqaan saddex qaybood qaybta koowaad waa aragoostada badda Hindiya laga guro oo jaalaha yelowga iyo midda buluuga ee badda cas laga guro iyo midda la yiraahdo rabadiyaanka oo dhulka qaybtii laga helo sida kulul oo kale iyo bayl oo kale laga helo aragoostada hadda markaan ka hadlo xabadda aragoostada ay waxay dhashaa sida anigu aan la socdo 80,000 oo xabbo bay ayay dhashaa waxay kaloo samaysaa marka ay shuunka ku sido oo korka ku soo qaado haddana waxay ku sidaa caloosha haddana waxay ku sidaa shafka saddexda marxaladood bay madhaa xabaddaasu marka ay dhasho 80,000 oo ay gaadho lambarka loo yaqaan eeda oo ka bilaabma 90 ilaa 110 sideed tan baa lagu qiyaasaa xabadda noocaasa qof baa la soo baxa wuxuuna siistaa $1 iyo bar raalli bayna ummaddu ka wada tahay haddii 8 la gado 132,000 bay u dhigantaa waan hayaa iyagoo qoraal iyo iyagoo maaragtay waxay yihiin mobilkan igu jira kuwa kale waan soo saari doona bismillaah kariim xabadda noocaasa haddii la yiraahdo adaa wadankaaga u dhashay badda ku celi tusaale ahaan haddaan soo qaato waxa la yiri hadda ka hor reer baa waxa u dhalay baa la yiri 10 lo ah 100 lo ah ama 100 ariya reerna waxa u dhalay hal neefo ariya u dhalay reerkii 100ka ayaa waxay xadayaan intee soo gurayeen neefkii waxay ka maalayaan reerkii u joogay halka neef tusaale marka tiraahdo war intaasoo tan baa soo baxay 10,000 oo 10 tan baa soo baxay war 500 oo kiilo oo dhaliinka ah kaanba dhalaya badda lagu celiyo iimaanka dadka wuxuu ka raacay tiibaa la daba jooga waxa la rabaa intii la soo qaato cadadka kaanba cadadka la isticmaalo oo haddana $1 iyo bar la siisto war haddaa tiraahdo war walaalayaal aan badda u daysano wadanka ininka u dhalanay ka tahriibi meelo dadkii wadanka u dhashay ilmaheena ayaa ku noolaan doona ma ka yeelaya xabadda hadda soo baxda qadadeedu rajaynaya ninka karaaniga iyo shirkadda haya raalli buu ka yahay waxa hadda dhacday Dubai intii la geeyay 2 kunteelar oo shuun in la keenay 2 kunteelar waa shuun 2 kunteelar baawurtaan samtareelada 2 kunteelar oo shuun abu soo dhigay iyo bala kale lagu dardaray shuunku waa dhasheedii markii la jaray ayaa waxa noqotay 2 kunteelar markaas waxa la weydiiyay ganacsatada Soomaaliga ahayd idinka Soomaali ma tihid miya ma wadana u shaqo tagtaanin ba wina wadanka ina u dhalan saudi kada ina intaas oo wadankii soo xaalufsaanin mid waa qodobka xaalufkaasna waxa wada dadkeena reer xeebeedka oo badda jooga ama baahiyaha ku kalifto ama aqli xumaha ku kalifto qodobka waxaan raacinayaa waxaan ku codsanaynaa heer wasiir heer dawladeed heer madaxweyne iyo heerka bulshada iyo aqoon-yahaniinta arrinkaas in wax laga qabto oo aan bal wax kale la qaban intaan arrimaha kala gudbin xabadda dhalays in badda nool ku celiyo waan rabnaa anigu dadka ka shaqeeya baana badda ayaan ku celin jiray maantii dama aniga leeyla soo degay markaas aan wax sameeysaani war xabadda badda ku celiya ma ka yeelay wuxuu aniga reerkii fiidi bay igu taagan baahida jidda xabaddeeda ilaahay isii wuu la cararaya karaanigina wuu ka miisaamay talaagada lagu ridaaya war haddee ku dhasho shirkadaha qaybtood 8 badda kama soo saaraan igu xoog badan hal xabaana laga yaabo inay dhasho $1 iyo bar balsan xagga hadee tagtana $5 ka badan Dubai ka badan mayso ceeb iyo fawaaxish iyo badii la soo xaalfiyaa meesha la wareegay waxaan rabnaa marka arrinka waxaan ku codsanaynaa dhammaan dadka reer Puntland in xabadda dhalaysa badda lagu celiyo kaamu goormu dhalaa weey marka dad baan waxa ka maal bisha 12 buu dhalaa ma yaanu macnahaas ma garanayo xaqiiqda markaan ka hadlo kaambuhu mar allaale marka aragto ama shafku ku sidaa cid aqoon leh baa hadda garanaysa halkan shafkaagu ku sidaa ama caloosha ayuu ku sidaa ama shuunku ku sidaa saddexdaba haduusan ku sidin marka dadku bisha 12 iyo bisha 10 bay soo qaateen tusaale ahaan haddaan soo qaato
kaambi oo badiyo dihin fadhida baa la tagaya oo badi jooga kaambahan la soo saaray cadadka dhalay la socda baa lagu qiyaas qaatay waxa may kaambu hadeeru dhalaya hadhow markuu dhamaado kaambi la wada gurana waxa leeyahay kaambi waa yaraaday oo hadee kaambihii xilligan ma dhalo wajiino kale markuu yimaado qofkii celcelis maalintii wuxuu soo saaraa 5 xabo dhalaya markuu qofku maalintii helo 5 kiilo cada ama 6 kiilo cada ama 7 kiilo cada wuxuu soo saaraa 5 xabo oo dhalaya halaga yaab inay $10 gaarin waana 8 bay noqonaysaa haddii lambarka 07 ka ee gaadho 70 gram noqotana waxay noqotaa 4 iyo 400 waa markii 70 gram ee gaadho waa B eedana wuxuu ku noqdaa 90 gram wuxuu ku rimaa oo kunta ku qaadaa 85 gram goortu maraayo waa B wali ma gaarin xilliga la hela goorma tahay marka kaambu uu xaalufo oo la wada guro la dhamayo baa waxa orgooda yaryarka ilo kii kale waa la guray tii aan eeda gaarin oo 80 iyo ahayd muxuu ahaayay shanta ay arkaysa iyadoo rimaan qodobka halkaas aan ka gudbayaa qodobka xiga waxaan codsanayaa dadka xeebaha Puntland ku soo duulay oo ay maraakiibtu kamid yihiin in wadanka laga qabto tusaale haddaan u soo qaato dir magaalada Garowe Toobaleen ay leedahay Toobaleennadaas badii dhexdeedii laga sameeyay meeshii uu ku dhali jiray kaambuhu xataa la mariyay waxaa loo adeegsaday taraabula casriya annaga reer Puntland marka xeebaha ka shaqaysanayno badda waxa naga badiya wiilka Yemen ku dhashay iyo wiilka Hindiya jooga iyo wiilka jooga China waayo hal god kasta oo shacab oo kaambuhu ku dhalo ama kalluun ku dhalo GPS baa ku xiran aalad casriya lagu guray laakiin annagu markaan halkan ka tagno waa tirinay waa baaciyeynaa 1 2 8 40 baac markaan biyaha hoos u dejino halkaana kalluunkii ka qaadaya halkaana tagaliintii ka qaadaysa laakiin wiilka Yemen jooga doonidii masnaca ka soo baxda GPS ka lagu shubaya inta Puntland god oo kalluun ku dhalo way taqaan ama kalluunka fiilada ku soo baxa ahaado ama kalluunka sabaayada ha ahaadi saasa horta badina loo ka badiya midda xigta waxay tahay doonyaha islaamka oo marsada ku soo xirta doonyaha yimaada waa laba midna canqar baalna midna islaamka oo ku soo xirta xeebaha halkii doon 20 gaadiida u shaqataga markii ugu yeedhahay gaadiidkaas maxay sameynayaan waxa laga iibinayaa tabadinta iyo taraaqada waxa ku go'aya wixii la doono kalluuna badda lagu daadinaya tabadinta iyo laga soo qaadanaya iyo taraaqada laga soo qaadanaya indhahayga habeen anoo guureynaya oo sixiimadan leey anigu wata ayaa waxaan ku soo baxay sixiimada afdheera 7 shabagood bay jiidaysay 7 shabagood waxa ku dhacay kalluunka loo yaqaan gocoraha qiyaas haddaan qaato 3 tan waa ka badan baddu ku shubo ka dhaqaa wixii la iga gadan maayo xaas baa ii joog hal xabo tabadiin aan raadsanaay meel kale u dhiganaya haddana kalluunkii si waada la oran jiray ama daalacada loo yaqaan waxa ka mid ah diiraha waxa ka mid ah afka toobka waxa ka mid ah qariibka wax kalluunka noocyadaas aha oo si waada u socdo doolinta isagoo saa u shumaayo 1 milyan ee shabaabti galaya nooc la gadanayo loo baahnaana maaha badda lagu shurin waa la layn markaas uu badda wuxuu ku noqonayaa heer taasna waxaan u baahanahay doonyaha imaanaya xeebaha oo islaamka in laga qayb qaato kalluunka 1 sentiba ha siisteen inay iibsadaan wixii badda ka soo baxa haddii kale laga joojiyo badda iyo badda dadka ka xaalufin ilo hantida iyadu weeye kagama munaasaqoon karo waraaqna waa ku wada WhatsApp ahaan uga wada kuwa kale waa soo saari doonaa waxaan u malaynayaa meesha wala sugayo waqtigeeda kuma soo koobi karo waana idin salaamaya haddii waqtiga yaraantiisa